dad kooban danahooda inay ka heshiyaan waxa loo baahan yahay doodo sax ah oo caafimaad qaba oo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka qayb galaan oo lagu soo afjaro dalkan sidoo nidaamkiisa dawladnimo u ekaan lahaa 30 sano kadib markii dawladdii dhexe ay burburtay in wili lagu muransan yahay ama la isku fahmi la'yahay sida dawladda Soomaaliyeed u ekaanayso runtii waa ayaan darro mujtamaca Soomaaliyeed haysata 34 sano kadib haddii wili taagan yihiin dad oranaya dalka waa ka go'aynaa oo haddana qorshe cad iyo aragti cad iyaguna ay lahayn inta kale Soomaalida diidan aysan lahayn waa mushkilad iyadana halkeeda taagan waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed baa halka uga diraya in la dhabta la wajaho xaqiiqada la dooro dawladnimada maanta Soomaaliya waxay ku soo ururtay oo kaliya doorasho iyo qof la dooranayo waa ayaan dar waxay ku soo ururtay muddaxileed dabada la haysto waxay ku soo ururtay oo kaliya yaa biri madax noqonaya muxuu qabanayaa meesha waa ka baxay runtii arrintaas waa arrin nagu wada tiran oo cid gaara maanta aan loogu dhaliili karin waase arrin u baahan si wada jir ah sidii looga bixi lahaa in laga shaqeeyo dalka Soomaaliyeed runtii waan ku celcelinaa midnimadu waa muqaddas wada jirku waa sidan laakiin haddana shaqo ku wajahan arrintaas sidii dadkan la isugu soo dhaweyn lahaa aad uma muuqato waxaa bal muuqanaysa dadka Soomaaliyeed sidii loo kala irdhayn lahaa ayaa aad u muuqanaysa mas'uuliyadaas waxay u baahan tahay in la iskala xisaabtamo bulshada Soomaaliyeed waa ay daaleen wax wanaagsan muddadii u dhameeyay dhagahooda kuma soo dhicin bulshada badankeeduna waxay iyaduna la qabsatay arrimaha noocaas waxaan aad uga xumahay bulshadii adduunka bulshooyinka wax saxa waliba waxa wax saxa dadka indhaar garadka ah waad garanaysaan waxa hadda Mareykanka ka socda iyo wadamada Yurub dawladahoodii waxa aad uga hor yimid jaamacadihii oo raba inay leeyihiin arrimahaas waa khaldan yihiin dalka sidaa laga daayo Falastiin sidaa laga daayo waa aragti cad oo banaanka taala dadka Soomaaliyeed waxa dhibaato ah dadkii dhalinyarada iyo indheer garadkii nin walba wuxuu la duuban yahay ninka reerkiisa iyo deegaankiisa waxaan halka ka jeclaan lahaa dadka reer Puntland inay aragtida cusub ay dawladahooda kula xisaabtamayaan oo waxa ay ku saxsan yihiin si mawduuci oo cilmi ah ugu taageeri lahaayeen waxyaabaha ay ku khaldan yihiin si mawduuci oo cilmi ah ay ugu soo bandhigi lahaayeen haddii ka dhaga adeegaan waa waxyaabaha u bannaan inay markaas mudaharaadyada iyo soo bandhigaan waxaan halka ka cadeynayaa cid kasta oo ra'yi u haysa dawladda Puntland diyaar waxaan u nahay inaan dhageysano diyaar waxaan u nahay inaan maqalno haddii waxa ay tabayaan aan qaban karin inaan u sharaxno sababaha aan qaban la'aan dabcan awoodeenna way kooban tahay waan dareemi karaa bulshada wax badan bay tabayaan marar badanna waxa ay ugu soo dhaca talooyin aad u fara badan laakiin waxaad ogaataan awoodda dawladdu weli way kooban tahay waxaase hubaa waxyaabaha talada u baahan in lagu daro farsamadii lagu gaari lahaa talooyinka noocaas ay ka yimaadaan bulshada inteeda kale waxaan rabaa ilaahay idankiis inaan xukuumadda iyo golahanba aan u soo jeediyo meelaha u baahan xoog in la saaro waxa weeye sidii aan dalkan kor ugu qaadi lahayn ilihiisa wax soo saarka ay ugu horeeyaan beeraha xoolaha macdanta kalluumaysiga iyo waxyaabaha la mid oo dhan haddaynan dadkeenna shaqo u abuurin waxa adkaanaysa ummaddan inaan sii hoggaan dabcan arrinta amnigu mar walba oo udub dhaxaad meelaan amni ka jirin horumarka ma dhici karo waxaan rajaynayaa wasaaradaha amniga iyo kuwa dhaqaalaha iyo kuwa adeega bulshadaba inay halka soo bandhigi doonaan qorshe la taaban karo oo fuli kara dabcan qorshe qurux badan macno gaar sameyn maayo waxaan u baahanahay qorshahaas inuu noqdo qorshe halbeeg leh oo fuli kara awoodda dawladdeenu haysato waxay ku fulisaa laba arrimood qorshayaasheeda miisaaniyadda dawladdeenu waa injiinka dhaqaajinaya sidii shaqo loo qaban lahaa wuxuu ku fulan yahay oo kaliya sugidda amniga iyo bixinta
adeegyada aasaasiga iyo mushaharooyinka howlwadeennada dalkan wadi lahaa laakiin dakhligii dadka wax loogu qaban lahaa ilaa hadda inta badan wuxuu ka yimaadaa hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha deeqaha bixiya laakiin xukuumaddan waxaa looga fadhiyaa inay furto janalka kaleeto ee bulshada qaybaheeda kala duwan canshuurta laga qaada maahane sidii looga heli lahaa dhaqaale fara badan oo halkaa ka yimaada oo muxuu noqonayaa kaas waa inay dowladda la timaadaa qorshayaal cadcad oo ay ku maalgelinayso dhallinyarada si ay wax soo saar kor ugu qaato si dakhligeenna iyo miisaaniyaddeenna kor kobc ugu dhaco dabcan miisaaniyadda puntland 5 sano la soo dhaafay koror baa ku dhacay kororkaas wuxuu ka muuqdaa hay-adaha dowladda maalintii koror dhacaba ballaarka iyo adeega dowladnimada kor u sii kacaya waxaan u baahannahay ilaahay dankiis markuu shirkan dhammaado gabagabadiisa inay ka soo baxaan qoraallo si saxa loo fahmi karo oo xoogga saara sidii dalkan uu marxaladdan hadda jiro uga bixi lahaa waxaan shirkan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa hay-adaha kala duwan ee halka fadhiya ilaahay dankiis muddooyinka la joogo inay soo bandhigaan wax dadkan aayo u noqda waxaan rajaynayaa inay dadweynaha reer puntland maanta wixii ka dambeeyay markuu shirkaas soo xirmo ay garanayaan waxay bulshadan waxay dowladdan ay ka rabaan muddadii la soo dhaafay intii xukuumaddan la aasaasay waxaa dhici karta dadka reer puntland inay sugayeen xukuumadda iyo say u tallaabsanayso marxaladdii la soo dhaafay shaqadii la qabtay intii doorashada ka dambeeyay waxay in xukuumad la dhiso in xukuumaddu ay fursad u hesho inay wasaaradahooda xilalka la wareegaan fahmaan howlaha yaalla si ay u helaan aragti cad iyo qorshe cusub markay qiimeeyaan wixii meesha ugu yimaadeen wixii ka horreeyay la qabtay kuna biiriyaan waxa u muuqan kara in la qaban karo wixii hadda ka dambeeya ayaa waxaa la rajaynayaa insha allah waxqabadka xukuumadda ee la qiyaasi karo heerka uu gaaray iyo meesha uu tiigsaday kelmadeydu waa soo dhoweyn iyo furitaan baaqaygu waxa weeye reer puntland inay midnimadooda iyo wadajirkooda adkeeyaan horumarkooda ka wada shaqeeyaan hay-adaha dowladdu wada shaqeeyaan isxisaabiyaan oo iskor joogteeyaan golaha wakiilada waxaan ilaahay dankiis u rajaynayaa inuu iyaguna sidoo kaleeto waajibka bulshadooda ka saaran ay gutaan waddo fiican bay ku socdaan waxaan rajaynayaa waddadaas inay noqoto waddo ummaddan u adeegta hay-adaha dowladdu waxaa la rabaa hay-ado isxisaabinaya iyagoo is ixtiraamaya hay-ado wada shaqayn hufan ay ka dhexayso waxaan rajaynayaa inuu noqdo hay-ado aan isku milmin oo aan wax isweydaarsan waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inuu noqdo hay-ado hufan marka shaqada lagu jiro marka shaqada laga baxo dad eheloo saaxiibaa la yahay wixii dadkaa ka dhexeeya waa meesheeda laakiin xilliga shaqada waxaa la rabaa inay shaqadaa hufnaato waxaan rabnaa bulshadeenna inaan barno shaqada dowladdu waxa ay tahay runtii faham darro badan baa ka jira dowladda iyo waxa laga rabo waxyaabaha aniga runtii aad aan u tabaya waxaa ka mid ah waxaas wasaaradooda ee dowladdu qabanayaan dadweynuhu waxba uma arkaan waxay leeyihin adi maxaa noo qabata aniga ii imaanaya marka inay fahmaan war waxa wax qabanaya aniga maaha dadka wax qabanaya waa dadkan waxay qabanayaanna waa wax muuqdo in la xisaabiyo u baahan marka culayska ugu badan oo haysta waxa weeye dadkii anigay rabaan inaan wax u qabto waxa aan qabanaya mararka qaarkood marka dadkan tirada badan oo aan shaqada haya waxa u muuqda dad wax kala qabsanaya iyagu leeyihiin saasay u fahamsan yihiin baan isleeyahay arrintaa in la saxay u baahanta haddii kaleeto annagoo dhan waxay noqonaysaa inaan dowladnimada ka cararno xaqiiqdu waa sidaas culays badan baa ka jira dowladnimada aad iyo aad ah marka waxaan rajaynayaa golaha kale inuu hoos u galo oo bulshada naftarkeeda qaybta ku saabsan tacliiminta bulshada civic educationka meesha waa ka maqan yahay ilaan qofku eed male haddaan wixii jiray loo sheegin marka arrintaas aaday u adagta waxaan kaloo ka digayaa hay-adahay dowladdu hadday u ekaadaan hay-ado reeraheennu qaybsadeen iyadana waa mushkilo kaleeto oo wasiir walba markuu meeshiisa tago uu yidhaahdo intuu dadka fiiriyo dadkii anigay soo doortay halka kuma jiraan sida mararka qaarkood dhici jirtay hadda ma dhicin baan filayaa iyadana shiddadeeday leedahay waxaan rabnaa dad wada jira iyo howlwadeenno ummadda u siban inay dhacdo dabcan shaqada iyo fursadaha in loo sinnaado meeshay ku jirtaa
waxaan rajaynaynaa habka shaqo qorista inaan dib ugu noqonno waxaan kaloo rajaynayaa habka dawladdu u dhisan tahay inaan dib u eegno waxaan rabnaa ilaahay idankiis oon halka rabaa inaan ka sheego markuu shirkaan dhammaado guddiyaan samayn doonaa dib u qiimeeya hay-adaha dawladda shaqaalaha dawladda dabcan dulmi badanaa ku dhex jira sababo kasta ha ku yimaadee wuxuu u baahan yahay isku dheelitirka in dib loo eego waxaan rajaynaynaa bulshaduna inay waqtina siiso annaga ruuxaddeenna waxyaabaha uga shaqeyno iyadoo tii hore khaldan tahay haddii culays kale nala saaro khaladkii khalad lagu saxo dee dalkan khatar buu ku jirayaa mustaqbalka si uu caga dhigto marka waxaan u baahannahay 5 sano inay noqoto marxaladdii la soo afjiraayay nidaamka dawliga ah ee sharciga ku dhisan inay 5 sano noqotaa ilaahay idinka ka rajaynaya oo waxaan wixii ka dambeeya dawlad ku shaqaysa sida dawladaha adduunka u shaqeeyaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo qorshayaal cadcad oo la yaqaano oo dadka howlwadeennada ah waddada ay soo marayaan iyo sida loo qaatay cad yihiin marka culaysada jira waan dareemayaa duruufta dadkeenu ku jiro waan dareemayaa laakiin haddana waxaan u baahannahay maalin walba inaan tallaabo hore u qaado shalay bay ahayd maanta waa maanta berri inaan tiigsanno marka horumarkaasna wuxuu ku imaan karaa keliya waa wada shaqayn iyo wada jir waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed guul waxaan u rajaynayaa horumar waxaan ka xumahay marxaladda adag ee dalkeena ku jiraan waxaa runtii aad ii dhibaysa mana habaabinta hoggaanka dalka ka socota waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo waxyaabaha golaha wada tashiga qaranka ka socda wax Puntland ay qayb ka tahay maaha waxay raalli ka tahayna maaha laakiin intaa u dhaafin maayo waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay indhaha furaan iyagu garsoorayaal noqdaan waxa aan diidanahay waa wax hadda socdo kaleeto waxaas ummad maslaxadeeda laguma heli karo waxaan u baahannahay golayaasha dawladda hogaaminaya inay madalan noocaan intay isu yimaadaan laga wada qaybgeliyo dhammaan dadka oo warcad laga soo saaro dhowr qof go'aano ay soo saaraan oo aanan runtii markaas ka turjumayn bulshada dareenkeeda waxa weeye waqtiga bay sii dilaysaa waxaan rajaynayaa inuu caqligu taliyo waxaan rajaynayaa inay dadkani si sax ah ay u abaaraan xaaladaha murugsan ee dalka ka jira dalkeena culays badan baa saaran gobolka guud ahaan dhibaata ka jirta Yemen oo dariskeena wada aragtaan wax ka socda waxa badaheeni ka socda waad arkaysaan waxa degaankii ka socda waad arkaysaan xaalufinta lagu wado waxa dhalinyaradeena ku socda waad u jeedaan waxa degaano badan oo Soomaaliya amaan darrada ka jirta waad dareemaysaan kala maanduwanaanta dadka Soomaaliyeed meesha ay gaarto waad u jeedaan duruufaha kala duwan ee dalkeena ka jira wax la sii eegan kara maaha Puntland waxa insha Allah ballan u ah inay ninkii tiisa daryeelaa tu kale ku daraaliyay inay midnimada iyo wadajirka Puntland la adkeeyo hadafkeena koowaad inuu noqdo sidii caadadu u ahayd dawladda Puntlandna baadi goobka dawladda Soomaaliyeed inaysan ka daalin iyadoo inay si sax ah ku timaado caadifad waynu ka soo daalnay uma baahnin waxaan u baahannahay isla xisaabtanka gudaheen iyo isla xisaabtanka dadka kale wax naga dhaxayaan labadaba waxaan rajaynayaa arrimahaas inay noqdaan arrimo annagoo dhan si siman aan u eegno ugu baraarugno hadal badan maanta ma harin waayo hadaladeen waxay u badnaan doonaan doodo iyo shaqooyin qaybsan waxaan noo wada rajaynayaa guul waad